Manduri, Karishma, Ravina ayuu kufsi kula kacay Mohnish Ladar dhibi jiray gabdhaha iyo noloshiisa. Mohnish wuxuu ka mid yahay jilayaasha samayn kara door walba, sidoo kale wejiyo kala duwan ayaa filmaantiisa lagu arkay, mar inuu daacad noqdo iyo mar inuu noqdo Ladar aan nixin. Soomaalida badanaa waxay u yaqaanaan santaag. Mohnish wuxuu dhashay bishii February 1961 waana 58 jir. Waa jilaa ka mid ah kuwa ugu caansan Bollywood-ka, sidoo kalena wuxuu samayn jiray musalsalaadka TV-da laga daawado. Xiddigan wuxuu caan ku ahaa aflaamta sagaashamaadkii uu samayn jiray inuu atriishooyinka dhibo. Aflaamtiisa badankooda sagaashankii door xumaan ayuu ku jili jiray, iyo mid kufsanaya atriishooyinka Madhuri Dixit, Karishma Kapoor, Divya Bharti, Raveena Tandon iyo kuwo kale oo badan ayuu nafta u keeni jiray. Doorkaas ayuuna caan ku ahaa iyo atooraha inuu aad u dhibo. Mohnish waa dhal actor waxaana dhashay aktarada laga dambeyn jiray ee 5 mar ku guuleysatay Filmfare for Best Actress, waana nuntan. Aabihiisna waxaa lagu magacaabaa Rajneesh, waxayna ka mid yihiin qoyska Mukherjee oo ka tirsan Kajal, Rani, Tanisha iyo Risham, waana qoys awood ku leh Bollywood-ka. Xiddigan kaliya ma ahan ee ku dhashay atriishada Nutran waxayna geeriyootay aan ku celiya hadalkaas xiddigan ah kan kaliya ay dhashay atriishada Nutran waxayna geeriyootay bilowgii aflaamta wiilkeeda ee sagaashamaadkii. Mohnish oo ay hooyadiisa atriisho weyn ahayd, dhib muusan ku qabin inuu soo gala Bollywood-ka, wuxuuna kasoo bilaabay inuu hogaamiye ka noqdo aflaamta. Filmaanta uu hogaamiyay waxaa kamid ah Dazar, Bikar iyo Purani Mandir iyo kuwo kale oo badan. Kadib wuxuu si weyn ugu soo caan baxay markii uu bilaabay wejiga xaraarnimada ama doorka Ladarka ayuu noqday mid guulo waaweyn gaaray. Filimka Main Pyar Kiya 1999 ee Salman Khan ayuu caan ku noqday kadib filimkaas markuu noqday all time blockbuster. Mustaqbalka Mohnish kadib wuxuu noqday Ladar oo si weyn aad loo baadagoobo. Kadib wuxuu ka soo muuqday filmaanta badan oo ay ka mid ahaayeen Diiwaanaha 1992 ee SRK ku soo caan baxay. Kadib wuxuu mar kale ka soo muuqday filmaan ay ka mid yihiin Soraji iyo Hum Aapke Haon iyo filmaan kale oo badan. Xiddigan ayaa noqday jilaa aad loo baadagoobo maadaama wejigiisa Ladarnimo aad loogu helay, wuxuuna ka soo muuqday ku dhawaad 90 film. Sidoo kale wuxuu samayn jiray musalsalaadka TV-da laga daawado. Xiddigan ayaa ku guuleystay abaalmarino badan, wuxuuna diiwaanka ku ritay ugu yaraan 6 abaalmarin oo caalami ayuu ku guuleystay. Ugu dambeyn, Mohnish wuxuu 1992 guursaday atriishadii Ekta Sohini oo ka soo muuqatay filmaantii Saajan, Tahalka iyo kuwo kale oo badan, waxayna u haysaa 2 gabar.